Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal kulanti wanaagsan meel kasta joogtaan. Ku soo dhawaada Caalmiri 24. Barnaamijkan maanta waxaan uga hadli doonaa booqashada madaxweynaha Ruushka ee dalka Kuuriyada Waqooyi, sidoo kale isku dhacyada ciidamada Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa magaalada Gaza oo xalay iyo maantaba ay u ahayd waqti aan aad u wanaagsanayn. Duqeymaha Israa'iil oo aad loogu harqiyay ayaan barnaamijka daawadayaal uga hadli doonaa. Mar kale ku soo dhawaada Caalmiri 24. haddii aad nagu cusub tahay YouTube-ka subscribe noo saar, Facebook page-ka noo follow garee, share iyo like noo saar. aan ku bilownay magaalada Gaza ayaa waxaa la sheegay in xalay ilaa maanta ay aad ugu xumay dadka ku nool magaaladaasi kadib duqeymo aan kala joogsi lahayn oo ciidanka Israa'iil ay ku harqiyeen, gaar ahaan kaamka dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin. kaamka Nusayraad oo ayaan dhawaato la ogaan dhibaatooyin xoogan ay ka geysteen, sidoo kale tan 4 qofood oo maxaabiistii ka mid ay ka furteen meel aan ka fogeyn kaamkaasi ayaa la sheegay ilaa xalay duqeymaad u daran ciidanka Israa'iil ay ku garaacayeen. Israa'iil oo markaan dhexdeeda aad uga tafan tahay, dadkuna banaanbaxyo badan wadaan, siyaasiyiintuna aad uga soo horjeedaan Netanyahu iyo qorshayaasha uu wado, ayaa la sheegay in ciidanku ay kordhiyeen duqeymaha badda iyo cirkaba laga soo tuuray ay ku garaacayaan dadka barakacayaasha meelaha ay ku sugan yihiin ee magaalada Gaza. dad badan ayaa la sheegay inay geeriyoodeen, dhimashaduna ay saacadda ka dambeysay kor u kacayso. sidoo kale waxaa dhinac soconaya duqeymahaasi meelaha qaarkood oo dagaalo aad u xoogan ay ka soconayaan. ciidanka muqaawamadana ay dhibaatooyin xoogan laftigooda u geysteen ciidanka Israa'iil. dhimashadooda ayaa la sheegay in aad u badan tahay maalmahan, sidoo kale taangiyo badan iyo qalab badan oo ciidan laga burburinayo. marka laga yimaado xaaladda magaalada Gaza, akhbaarta caalamka ugu weyn ayaa waxay ka jirtaa Kuuriyada Waqooyi oo booqanaya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. madaxweynaha dalka Ruushka iyo wafdi hogaaminaya ayaa la sheegay inay booqanayaan Kuuriyada Waqooyi, halkaas oo booqasho uu ku tagayo muddo 24 sano kadib. Putin ayaa 2000 markii la doortay xilligaas wuxuu booqasho ku tagay Kuuriyada Waqooyi, xilligaas oo Kuuriyada Waqooyi uu hogaaminayay madaxweynaha hadda jooga Kim Jong-il. muddo ka hor ayaa Kuuriyada Waqooyi madaxweynaheedu wuxuu soo booqday dalka Ruushka, xilligaas oo reer galbeedku ay aaminsan yihiin in heshiisaad muhiim ah ay ku dhex mareen dowladaha Pyongyang iyo Moscow. booqashadii Kim Jong-un ee uu ku yimid Ruushka kadib waxaa la aaminsan yahay reer galbeedkuna ay tilmaameen in hub badan Ruushka lagu caawiyay, kaas oo ku caawiyay Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda, ayna ka caawisay Ruushka inuu sii xoojiyo dagaalka dalka Ukraine, deegaano badanna uu dib u qabsado. sidoo kale waxyaabaha laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in booqashooyinkan saadhaafka ay keenaan isbahaysiyo dhanka militariga oo dhex mara dowladaha reer galbeedka ku kacsan sida Kuuriyada Waqooyi, Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo dowlado kale. inkasta oo la leeyahay heshiis kasta oo dhanka ciidanka oo ay galaan labada dowladood ee Ruushka iyo si lamid ah Kuuriyada Waqooyi wuxuu jebin doonaa cunaqabateynadii qaramada midoobay ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi qaybo ka mid ah. Ruushkuna oo qayb ka ah, sidoo kale tan Ruushku oo xubin joogta ah golaha ammaanka qaramada midoobay oo goobjoog ka ahaa markii cunaqabateynta lagu soo rogay. haddana waxaa la filayaa inay dhici karto in heshiisaad dhanka ciidanka ay galaan. la taliyaha arrimaha siyaasadda dibadda madaxweynaha dalka Ruushka Yuri Ushakov ayaa sheegay in labada wadan ay geli doonaan heshiisaad saaxiibtinimo oo wadaag ay ku yihiin, kuwaas oo ay ka mid yihiin heshiisaad dhanka amniga. sidoo kale heshiisaad ganacsi ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan madaxda dowladda Ruushka iyo madaxda Kuuriyada Waqooyi ee booqashada maanta loogu tagayo. wasiirada gaashaandhigga, arrimaha dibadda, ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka ayaa la sheegay inay ka mid yihiin safarka madaxweynaha dalkaasi Ruushka uu hogaaminayo ee tagaya Pyongyang, halkaasna wadahadalka kula yeelanaya hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. safarkan kadib uu Kuuriyada Waqooyi ku tagay madaxweynaha dalka Ruushka, wadahadalka uu la yeelanayo hogaamiyaasha dalkaasi kadib waxaa la sheegay inuu uga sii gudbi doono dalka Vietnam. dalka Vietnam oo isaguna ka mid ah dalalkii shuuciga ahaa ee muddo saaxiibka dhow isku ahaayeen Midowgii Sofiyeeti, ilaa iyo haddana aysan kala fogeyn Ruushka, ayaa la sheegay in xilligan Putin uu xoojinayo saaxiibadii xilligaas ay Ruushka ama Sofiyeetka u lahaan jiray si Mareykanka iyo reer galbeedka ay uga hor yimaadaan. qaabka qaramada midoobay xilligan wuxuu wajahaysa u eg qaab reer galbeedka ay gacanta ku hayaan ayaa dowlado badan oo caalamka niyadjab badan gelisay, taasoo keentay in dowladihii markii hore cunaqabateynada la saari jiray ay markaan dib u laabtaan. sidoo kaleetana kuwa kale ee cadowga ku ah reer galbeedka ay saaxiibtinimo samaystaan. Iiraan oo reer galbeedka sidoo kale isku dhegan yihiin,
Kuuriyada Waqooyi, Ruushka laftigiisa iyo Shiinaha oo asagana la sheegay in reer galbeedku ay ku baaqeen cunaqabatayn ay saari doonaan arrimo la xiriira caawinta Ruushka ee dalka Ukraine ayaa la filayaa in isbahaysiyo dhanka ciidanka ayaguna ay dhawaan ku wada dhawaaqi doonaan. Haddii arrintaasi ay dhacdana waxay noqon kartaa culays kale ama caqabad weyn oo caalamka ku soo wajahan iyo si lamid ah miisaanka dhanka isbahaysiyada difaac ee dunida ka jira inuu loolan kale markaan ku soo biiri doono. Dhanka kale, xilli madaxweynaha dalka Ruushka uu booqanayo Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegay in ciidamo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ay ka gudbeen xuduudka ay la leeyihiin dhanka Kuuriyada Koonfureed. Ciidanka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in 20 ilaa 30 askari oo ka tirsan kuwa Kuuriyada Waqooyi ka soo gudbeen aagga militariga ka caagan ee labada dowladood ka dhaxeeya, ayna markii dambe ciidanka Kuuriyada Koonfureed ku rideen rasaas digniina kadibna ay dib u laabteen. Asbuuc ka hor ayay sidoo kale Kuuriyada Koonfureed ay soo sheegtay in ciidamo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ay xuduudka ka soo gudbeen, taasna waxay u arki karaan reer galbeedka inay tahay daandaansi ay xilligan sameynayso xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo garab ka og Shiinaha iyo Ruushka. Dowladaha Mareykanka ay ugu horeeyaan waxay soo kala sheegeen inay si dhow ula socon doonaan booqashada madaxweynaha Ruushka iyo wafdiga la socda ay ku tagayaan Kuuriyada Waqooyi, waxyaabaha ka soo bixi doonana ay si dhow u daraasayn doonaan. Aad ayaa looga cabsi qabaa go'aamada iyo silama heshiisaadka halkaa lagu saxiixi karo iyadoo dhowaan Kuuriyada Waqooyi ay bilowday in gantaal ama dayax-gacmeed baxbasaasa ay hawada u dirsato. Ugu dambeyn, dowladda Malaysia ayaa sheegtay inay ku biiri doonto isbahaysiga lagu magacaabo BRICS. Isbahaysigan oo dowlado waaweyn oo caalamka ay ku jiraan sida Ruushka, Shiinaha, Iiraan, Hindiya, Brazil iyo kuwo kale oo dhawaan ku soo biiray oo Masar iyo Itoobiya ka mid yihiin ayaa xilligan waxaa haddana qorsheynaysa in Malaysia ayaduna ay codsi u gudubsato sidii ay ugu biiri lahayd. Ku biirista Malaysia ayaa loo arkaa inay saameyn weyn sidoo kale ku soo kordhin doonto BRICS, sidoo kaleetana qorshahaas ay aqbali doonaan dowladaha kale ee BRICS ku jira maadaama Malaysia ay tahay miisaan culus oo ka mid ah wadamada Asia. Daawadeyaal, intaas ayaan qodobada koobnaa oo uga hadlaynay barnaamijkeena maanta aan ku soo koobaya.